بسم الله الرحمن الرحيم maanta taariikhda ku beegan tahay 17 Janaayo sanadka 2022 waxa shir isugu yimid hogaanka maamulka gobolka Banaadir ee heer gobol iyo maamulada degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir kaasi oo loogu hadlayay Gurmadka Abaaraha Gobolka Banaadir shirkan waxa shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee arrimaha bulshada iyo wacyigelinta ahna gudoomiyaha guddiga abaaraha ee gobolka Banaadir Marwa Basma Amir Ahmed shirka inta uu socday waxa laga dhageystay guddiga Gurmadka Abaaraha Gobolka warbixinadii ugu dambeeyay ee xaaladda saameynta abaaraha dalka gaar ahaan gudaha gobolka Banaadir guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in labadii bilood ee ugu dambeysay ee magaalada Muqdisho soo gaareen dad ka soo barakacay abaaraha ka dhacay gobolada dalka gaar ahaan koonfur galbeed iyo Hirshabeelle kuwaasi oo tiro ahaan lagu qiyaasay inay kor u dhaafayaan 25,000 oo ruux guddiga ayaa warbixinta sidoo kale ku sheegay in abaaraha dalka ay xilligan saameeyeen dad gaaraya 3.2 milyan halka ay ku barakaceen ku dhawaad 200,000 oo qofood iyadoo aad loogu cabsi qabo in 3 bilood ee soo socota uu barakaca gaaro 1.5 milyan kuwaasoo intooda badan soo miciinbidi doona gudaha gobolka Banaadir haddaba shirka xiriirnta Gurmadka Abaaraha Gobolka Banaadir ayaa laga soo saaray qodobada soo socda shirka waxa uu bogaadiyay dadaalka xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan Gurmadka Abaaraha dalka iyadoo sidoo kale shirka uu u mahadnaqay dhammaan hay'adaha kala duwan ku hoolan sidii loo gargaari lahaa ama gurmad loo gaarsiin lahaa dadku iyagu ku soo barakacay abaaraha ka jira guud ahaan dalka Soomaaliya waxa hoosta laga xariiqay muhiimadda ay leedahay in loo wada istaago dawlad iyo ganacsato intaba iyo shacabkaba u diyaar garowga gurmadka dadka ay abaartu saameeyeen iyo kuwa la filayo in ay bilaha soo socda ay ku barakacaan abaaraha ka jira dalka waxa sidoo kale la isla gartay dhammaan maamulada degmooyinka iyo deegaanada inay si dhow ula shaqeeyaan guddiga Gurmadka Abaaraha heer gobol si loo xaqiijiyo habsami u socodka iyo waxtarka hawlaha Gurmadka Abaaraha ee ka socda gudaha gobolka Banaadir waxa la isku raacay in dhawaan uu maamulka gobolka Banaadir qaban doono kulan weyn loogu hadli doono xiriirnta iyo isku dubidda arrimaha Gurmadka Abaaraha gaar ahaan gobolka Banaadir kaasoo lagu casuumi doono dhammaan bahwadaagta iyo hay'adaha kala duwan ee ku hoolan Gurmadka Abaaraha ugu dambeyn waxa la isku raacay in dhawaan la qabto kulan weyn isku soo baxa kaasi oo roobdoon iyo duco loogu sameynayo inuu eeba naga dulqaado abaaraha ka jira guud ahaan dalka Soomaaliya